المختار محاكر بتاع الشيخ واي كم أنا إنه شاغي هاي قف دين تكو حال دار وياهاي قف dadka wacdiyo uu yahay qof wanaagsan uu yahay saas darteed aan ku jeclaaday waa waxaan ku doortay ninkaasna waa rabaa cid iga celi kartana malaha ama comment soo qori lahayd عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتنا قيمة بدنا كحرم برتنا يوتيوبك عبد الله الدقسي waxaan maanta ka hadlaynaa sheekha daaciga ah ee sidoo kale tiktok caanka ka ah mukhtaar daaci gabadha jeclaatay iyo aruurmadeeda balse waxaan ka codsanay markii aan muuqaalka leeg saarto una sheekay saaxiibada kale Facebook saad helo daawad jeli saaxiibada wanaagsan kale aad ku maasantahay la jaaqadkaaga iyo si qurux badan aad nala joogto fadlan muuqaalka sheergaree una leeg kare saaxiibada kale kula jira faraha bulshada YouTube Facebook المختار محاكر بتاع الشيخ واي كم أنا إنه شاغي هاي قف دين تكو حال دار uu yahay qof dadka wacdiyo uu yahay qof wanaagsan uu yahay saas darteed aan ku jeclaaday waa waxaan ku doortay ninkaasna waa rabaa cid iga celi kartana malaha ama comment soo qori lahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتنا قيمة بدنا كحرم برتنا يوتيوب كأي عبد الله الدقسي يسوق فيسبوك بيج كنا حدون وإحنا صاحبي هنا gabadha jeclaatay sheekha daciga ah sheekh mukhtaar ee sheekha yar ee tiktok ka soo caanbaxay sheekha daciga ah loo yaqaano gabadhan ayaa haddaba ka falcelinaysa amba ka fahloonaysa sababaha ku jeclaatay iyo waxyaalaha ay kaga hadlayso in sheekhan daciga ah sheekh mukhtaar saaxiib marka intaan muuqaalka dhammaystirin sidaan halka hore ugu sheegnay waxaan ka codsanayaa videoga inaad like saarto sidoo kale u share garay saaxiibada kale Facebook iyo YouTube kuwa jira Instagram TikTok dhammaan saaxiibayaal waxaan codsanaynaa inaad followdan nagu soo gaardaan subscribe-ka YouTube-ka nagu caawisaan aad iyo aad ugu mahadsantihiin jaaqadkiina si qurux badan ee noola joogteen waad ku mahadsantihiin saaxiibayaal sida quruxda badan ee noola jaanqaateen waxaan barnaamijkeena ka hadlaynay galabta oo waxay ahayd rabadaanta dhexdeeda ahayd inkastoo aysan maaragtay wanaagsaneyn amba wacnayn inaan soo duubno fiidiyodan amba ka hadalno haddana dib waxaa jiray in waxyaalo falcelin oo aad u badan taasi oo ahay dadku ka sameynayeen muuqaalkan taasi oo nagu qasabtay inaan kasoo hadlo saaxiib muuqaalkan waxay ahayd gabadhan ayaa soo duubtay intay sawirkii soo qaadatay ee kasoo duubtay barta TikTok waxayna sheegtay inay jeceshahay sheekha daciga ah ee sheekh mukhtaar kaasi oo ugu yeertay inay tahay qofay aad u jeceshahay runtii waxay tiri sheekhan aniga ayaa jecel sidaa u yahay aniga ayaa ku jecel aad iyo aad ayaan ugu jeclahay sheekha si kasta oo uu yahay cid kasta oo dareen iyo falcelin ka samaysa amba ku doonta bay tir comment iyo wax kale ku soo qorta waxaan u sheegayaa inaan anigu sheekha jeclahay oon ku doortay qeybihiisa iyo maaragtay ixtiraamkiisa iyo sida sharafta badan ee dadka uu maaragtay u dhiirigeliyo si kastaba haatee haddaba arrintan ayaa dadka si weyn usoo jiidatay baraha bulshada isticmaala kuwaasi oo ku sifeeyey inay tahay mid soo jiidasho leh amba sidoo kale ahay in wacan tahay in sheekhan lagu ammaano balse gabadhan inay tahay mid baraankii samaynaysa in kale lama hubo saaxiib waxaan kusoo qudna muuqaalkeena kan xiga saaxiib intaan ku kulmi doono kan waxaan idin leenahay nabadgelyo assalaamu calaykum